madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay qalinjabinta jaamacadda culunta badda iyo kalluumaysiga ee magaalada Berbera munaasabadan oo loogu fooladeynayay qalinjabinta dufcaddii 9aad ee ka aflaxday jaamacadda culunta badda ee Berbera oo dhammayd 91 arday waxaana ka qaybgalka madashan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku wehelinaya xubno ka mid ah golaha wasiirada hoggaanka sare ee xisbiga talada haya ee kulmiye taliyaasha ciidamada qalabka sida maamulka heer degmo iyo gobol ee saaxil iyo Berbera waalidiin culimaaddin haween iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda culunta badda ee Berbera Professor Cabdiqani Maxamed Khayre ayaa ka warramay taariikhdii iyo maraaxilkii ardaydani soo mareen iyo guulaha ay ku talaabsadeen madaxweyne annagoo ixtiraam iyo ku hayna tixgelin aad u badan ardaydan waxaan hortaada ka cadaynayaa inay aqoon karti iyo dadaal u leeyihiin aqoonta badda oo waliba ay kala leeyihiin fakaltiyo kala duwan jaamacaddani waa wadnaha marka la yiraahdo xagga human resourceska iyo macluumaadka badda xeebta inta leeg ee 850 xudunta Berbera waxa ka muhiimsan wadnaha waa ta soo saaraysa generation cusub oo inaga dhaxla baritoole difaaca iyo wax soo saarka qaranka waa kuwa maanta waana leaders of tomorrow arday ku hadlay magaca ardayda qalin jabisay ayaa dareenkiisa ka warramay tani waxay inoo ahayd safar aynu soo bilownay talaabadiisii koobaad maanta waxaynu joognaa heer aynu waxa weeyaan ka mid dhalinay laakiin socdaalkii aynu soo bilownay muddadii 4 sanadood ahayd maanta halkan kuma dhameystirna waxaynu joognaa oo qayb kamid ah guulihiisii iyo midhihiisii oo aynu maanta guranayno maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Cidin barasaabka gobolka Saaxil Cali Cabdi Cabdilaahi ayaa sharaxay qiimaha aqoonta culunta baddu u leedahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maani maayaan u ducaynayaa gudoomiyaha jaamacadda Cabdiqani Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo ubadkiisana Allah ha barakeeyo anagu waa ku faanaynaa oo mas'uul ardayda ka qalin jabisa haddana waxay helaan chance aad u fara badan waxaan soo sheegayaa ardayda qalin jabisay adigu muftaaxii aqoonta aan cidna kula aqoonin baad baratay aqoon aan cidna kugu celiyeen cidna aan kugula tartameen ee baahideeduna ay joogto ayaad baratay waxaan doonaynaa in aqoontaada iyo cilmiga aad baratay albaabka muftaaxaad ku furto adigu banjkii 9aad iyaga iyo intii ka horeysay baa waan hambalyeynaya waxa kale oo hambalyeynaya waalidiintooda iyo macallimiintooda waxaan hambalyeynaya oo aan runtii amaan u jeedinayaa gudoomiyaha jaamacadda badda ay ku jirtaa jaamacaddu koritaan mudane madaxweyne waxaan boogaadinayaa oo dhiiri gelinayaa jaamacadda culunta baddu inay tahay maadaama aynu leenahay xeeb dheer oo 850 kiiloomitir ah oo khayraad badani uu jiifo dalkeenna uu u baahan yahay inaynu ka faa'iideysano in la dhiiri geliyo wasiirada wasaaradaha waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Ahmed Aadan Buuxane maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire iyo ganacsiga Maxamuud Xasan Sacad Saajin ahna murashaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga kulmiye ayaa dul istaagay qiimaha xukuumaddu siisay ka faa'iideysiga khayraadka badaha iyo aqoontooda marka ugu horeysa waa munaasabad runtii hambaliyo marka waxaan hambaliyeynayaa dhalinyarada maanta halkan ka qalin jabinaysa waxaan leeyahay hambaliyo inaan u mahad celiyo u mahad noqo ciddii gacan ka geysatay dhalinyarada maanta qalinka jabisay waxbarashadooda dhalinyaro ilaa maanta xilkiinu cid kale u saaraa laga bilaabo maanta xor baad tihiin idinka ayuu idinku soo wareegaysaa mas'uuliyaddu iyo xilku inaad idinku shaqo abuurtaan 91 dhalinyaro maanta graduate garoobaya hadduu qof waliba fikir la yimaado 10 dhalinyaro shaqo geynaysa 91 waxay shaqo geyn karaan 910 dhalinyaro waxaan u hambalyeeynaa awlaadda soo dadaashay ee dadaalka badan soo gelisay inay wax bartaan waalidka ku dadaalay ee inta gacanta ku hayay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda
mudana madaxweyne jaamacaddeena waxay jirtaa 12 sanadood 9 dufcadood way soo saartay meeshii ku wajahan tahayna waxa weeyaan waa badeena oo ah 850 kiiloomitir waxaan soo jeedinayaa madaxweyne si aynu cilmigan u kordhinno in la asaaso iskuul secondary ah oo aanu ka wada hadalnay maamulka jaamacadda ardayda iyo macallimiintii baxdayna maamulka ay ardayda baxdayna ay awood u leeyihiin inay ka dhigaan iskuulkaas maanta waxaan u fadhinaa dafcaddii 9aad ee ka soo baxda jaamacadda علومta badda iyo kalluumaysiga waxaan rajaynayaa jaamacadda badda iyo jaamacadda technicalkii Hargeysa iyo Taburco hadday iskaashadaan waddankeenu wuxuu jahaysanayaa dhinaca wax soo saarkii horumarka waxaan leenahay bad dheer oo 850 kiiloomitir isla markaa waxa muhiim ah in maalgashi rasmi ah lagu sameeyo wax soo saarka badda dadkeenu waxay ku dhisnaan jireen dhaqaalahoogu xoolaha bariga ku nool cimiladii caalamka ku dhaways bedeshay ku tiirsanaantii xoolaha su'aal baa saaran xoolaha roob inooga baahnayn yaa badeena ku jira in xoolaha aan ka faa'iideysano dhaqaale weyn baa inaga soo gali kara waa arrin muhiim ah marka waxaan ku talinayaa maalqabeenka waddanku inay fursado abuuraan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray ardayda ka qalin qoratay jaamacadda culunta badda ee Berbera marka horeysa waxaan hambalyo iyo duco u dirayaa jaamacadda badda dafcadda maanta ka qalin jabinaysa kuwii ka horeeyay macallimiintooda waalidkooda ku soo tabcay iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta iyo hawlaheeda iyo kubcinta jaamacaddan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana ducaynaynaa waxaan ku darayaa waxaa qabateen tiirraxaad qaranku u baahay oo bayrahsanaa ayaa iska xil saarteen waa ku mahadsantihiin marka in berriga ka badan oo aan cid aqoon lahayn ayaa aqoonteeda bilowdeen way kobci doontaa waana mustaqbalka shaqo iyo wax soo saar oo inaga dhinaa oo bilowdeen bilow wanaagsan weeyi insha Allah waa hirgeli waxaana noqon doonaa muddo aan fogeyn hadaynu saa ku sii wado dalalka badda yaqaana ee ka faa'iideysta ee adduunkana wax uga qabta iyaguna wax qabsada marka hambalyaan leeyahay intaa hawshaa ku tacabtay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa tilmaamay maalmahan waxaan maraynay safar gobolada dalka oo dhan oo ka bilaabay saaxil gobolada oo dhan waxaan kula kulannay shacbi Soomaaliland muwaadiniin aad iyo aad muwaadinimadu u dheer tahay oo marka bari loo sii dulkaaba duruufo adag ku jira duruufahaas oo colaad dad wada heegana ay cadaawo soo taagan yihiin dadkaasi oo aad iyo aad dalkooda iyo dadkooda oo dareeraya waxaana aad iyo aad u soo eegayeen gobolada galbeedka way soo ducaynayeen waxaanay doonayeen in xogaa loo noqdo dhibta ay qabaan iyo difaaca dalka ku jiraan iyo hawlaha ku jiraan in gobolada galbeedka la dareemaan oo la dareeraadaan aad iyo aad dadkaasi u muujiyeen adkaysi wadaninimo iyo inay xaqiijiyaan qaranka Soomaaliland sidii lagu hirgelinayay muruq maal dhiig iyo dhaqaale marka hadba meel waliba waxay wax ku noqotaa kolba hoggaanka ay hesha ee hawsha u hayeen shacabka Berbera waxay hoggaan u amaanta dad aad iyo aad danta dalka uga shaqeeyay gobol iyo mayor iyo degmo iyo shaqaalaha hoosaba markii aanu ka soo baxnay madaxtooyada waxaan la soo mariyay magaalada waxaad moodaa roobku aad dhulka ka dhigaa ee tana daadku qoraa waa la waayay waxaan ku amaanayaa madaxda gobol iyo degmada ee Berbera inay dhir kaga dhigeen magaalada sida dhinac roob oo kale oo maanta magaalada qofka soo gala ee sanadka magaalada magaalada wada inaysan oo hara oo nolol taalo aad arkayso
howlqabadka wadooyinka iyo nadaafadana waa ugu daraynaa oo nabadna waa ku jirtaan aad iyo aad baan bogaadinayaa weliba dowladda hoose ee berbera iyo guddoomiyahoodu hawsha ay magaalada ka qabanayso nadaafadda ah nidaamka ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey ardayda ka qalin jabisay jaamacadda culunta badda ee berbera ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan berbera saaxil